kulanti wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijkii arrimaha siyaasadda Soomaaliya iyo caalamka ee wardoon qodobada aad ku daawan doontaan waxa ka mid noqon doona madaxweynaha maamulka Puntland oo Garowe kula kulmay wakiilka qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha Soomaaliya wafti ka socday dawladda oo gaaray magaalada Baydhabo ra'iisul wasaare Khayre oo kulamo wali ka wada Geneva taliyihii xabsiga dhexe ee Xamar oo maanta shaqo joojin lagu sameeyay Turkiga oo digniin kale u diray Mareykanka banaanbaxyo xoogan oo ka socda gudaha dalka Mareykankana Soomaaliya ayuu sheegay inuu ka cafinayo lacagtii deynta ahayd ee ay ku lahaayeen intaas waxay hayeen qaar ka mid ah qodobada barnaamijka arrimaha siyaasadda Soomaaliya iyo caalamka ee wardoon hase ahaatee u diyaar garooba daawadayaal aan ku bilaabay magaalada Garowe ee xarunta gobolka Nugaal ayaa waxaa maanta gaaray wafdi uu hogaaminayo wakiilka qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha Soomaaliya oo ay weheliyaan madax ka socotay midowga Yurub iyo urur goboleedka IGAD iyagoo halkaasi kula kulmay madaxda maamulka Puntland kulan gaar ah oo wafdiga ay la qaateen madaxweynaha maamulka Puntland Siciid Cabdullaahi Dani iyo ku-xigeenkiisa ayaa waxa ay uga hadleen doorashada Soomaaliya 2021 amniga iyo xiriirka dawladda federaalka ee Soomaaliya iyo maamul goboleedyada dalka labada dhinac ayaa sidoo kale kulankaasi kaga wada hadlay sidii ay u wada shaqayn lahaayeen ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya mudane Xasan Cali Khayre iyo agaasimaha cusub ee qaybta maamulka bangiga adduunka ayaa kulan ku yeeshay magaalada Geneva ee dalka Switzerland kulanka oo ay qayb ka ahaayeen kulamada ra'iisul wasaaruhu la qaadanayo qaar ka mid ah madaxda ka qayb galaysa madasha qaxootiga adduunka ayaa looga hadlay arrimo muhiim ah oo ay ka mid yihiin dib u habaynta dhaqaalaha qorshaha deyn cafinta Soomaaliya iyo arrimo kale bangiga adduunka ayaa taageeray hay'adaha dawladda ee dalka si loo dhiirigeliyo dawlad wanaag loo baahan yahay ra'iisul wasaaraha ayaa intii uu joogo halkaasi waxa uu kulamo la qaadan doonaa madaxda Turkiga isagoo hore ula kulmay madaxweynaha dalkaasi gudoomiye ku-xigeenka koobaad ee golaha shacabka mudane Cabdiwali Ibraahim Sheekh Muudey iyo wafti baarlamaan oo uu hogaaminayo ayaa gaaray magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay waftiga uu hogaaminayo gudoomiye ku-xigeenka koobaad ayaa ka qayb galaya sanad guurada koobaad ee madaxweynaha maamul goboleedka Koonfur Galbeed mudane Cabdicasiis Maxamed Xasan Laftagareen sidoo kale wufuudda kale ayaa maanta ku wajahan magaalada Baydhabo ammaanka magaaladaasi ayaa aad loo adkeeyay iyadoona la sheegay inay ka qayb gali doonaan mas'uuliyiin kala duwan wufuud kala duwan ayaa gaartay magaalada Baydhabo saacadihii la soo dhaafay kuwaasi oo doonaya inay ka qayb galaan sanad guuradii koobaad ee xilhaynta madaxweynaha maamulkaasi saacadihii la soo dhaafay ayaa waxa baraha bulshada lagu faafiyay muuqaal lagu sheegay in taliyaha xabsiga dhexe ee Xamar Generaal Maxamed Sheekh Cumar wareegto ka soo baxday xafiiska taliyaha ciidamada asluubta Soomaaliyeed Generaal Mahad Cabdiraxmaan Aadan ayaa shaqadii looga joojiyay taliyihii xabsiga dhexe ee Xamar Generaal Maxamed Sheekh Cumar afhayeenka ciidamada asluubta oo warbaahinta kula hadlay magaalada Muqdisho ayaa sheegay in shaqo joojin lagu sameeyay Generaal oo ahaa taliyihii xabsiga dhexe ee Xamar qoyska bukaanka geeriyooday ayaa sheegay in taliyaha xabsiga dhexe oo adeegsanayay awood ciidan uu xoog ku galay isbitaal uu jiifay ninka bukaanka ahaa ciidamada BSF ee Puntland ee gobolka Bari ayaa maanta fashiliyay qarax lagu aasay bartamaha magaalada Boosaaso qaraxa koobaad ayaa waxa lagu aasay meel ku dhow shirkadda isgaarsiinta Golis wadada dhex marta magaalada Boosaaso intii uu howlgal ku socday ayaa waxa ciidamada amniga xireen wadooyinka isku xira magaalada kuwaasi oo hakad galiyay isu socodka gaadiidka ciidamada ayaa ku guuleystay inay qarxiyaan meeshii qaraxaasi lagu aasay waxaana qaraxa labaad la sheegayaa in lagu aasay xaafad u dhow Hotel Juba waxaana ciidamadu ay ku howlan yihiin sidii ay qaraxaasi ay u qarxin lahaayeen
dadweynaha ku dhaqan magaalada Boosaaso ayaa maanta aad uga cabsi qaba qaraxyada la sheegay in lagu aasay magaalada gudaheeda. Saraakiisha iyo laamaha amniga ee gobolka Bari wali kamay hadlin qaraxaasi. Ururka Al-Shabaab ayaa sheegay inay gudaha dalka Kenya ay ku dileen 9 ruux oo aan ahayn ciidamo balse u shaqeynaya dawladda Kenya. Dilkan oo ka dhacay deegaan lagu magacaabo Hurbaal ayaa lagu dilay 9 ruux. Ma jirto ilaa iyo hadda wax war ah oo ka soo baxay dawladda Kenya oo la xiriira 9kaasi ruux oo la dilay. Golaha wakiilada dalka Mareykanka ayaa markii ugu horeysay ansixiyay miisaaniyadda ay ku jirto deyn cafinta deynta lagu leeyahay Soomaaliya. Waxa intaas la raaciyay in lagu ansixiyay qaraarka deyn cafinta lagu leeyahay Soomaaliya. Xildhibaanad Ilhaan Cumar oo kamid ah golaha aqalka wakiilada Mareykanka ayaa waxay war-saxaafadeed ay soo saartay ku sheegtay inay soo dhaweynayso dadaalada deyn cafinta ah ee Soomaaliya. Dawladda Soomaaliya ayaa dadaal badan waxay ku bixinaysaa sidii deynta looga cafin lahaa Soomaaliya. Deyntan ayaa caqabad ku ah dawladda federaalka ee Soomaaliya maadaama ay adag tahay in waxyaabo badan laga caawiyo Soomaaliya. Aqalka wakiilada Mareykanka ayaa maanta oo Arbaco ah cod u qaadi doona in xilka laga qaado madaxweynaha dalka Mareykanka Trump iyo in kale. Kulan ay ku yeelan doonaan xarunta aqalka ee magaalada Washington ayaa dhammaan xubnaha aqalka wakiilada cod u qaadi doonaan 2 qodob oo dastuuri ah oo ay ku cusboonaysiinayaan xilka qaadista madaxweynaha dalkaasi. dalka Mareykanka iyo guud ahaan caalamka ayaa aad looga hadalhayaa eedaynta loo soo jeediyay madaxweynaha Mareykanka. Kumanaan ruux ayaa isugu soo baxay gudaha dalka Mareykanka iyadoona xubnaha aqalka wakiilada ay u codeynayaan mooshin xilka looga qaadayo madaxweynaha Mareykanka oo la tilmaamay inuu si xun u adeegsaday awoodiisa maamul. Banaanbaxyada ayaa waxa lagu kala qabtay magaalooyinka waaweyn ee dalkaasi. Dimuqraadiyiinta ayaa ku eedeeyay Trump inuu cadaadis saaray xukuumadda Ukraine si ay gacan uga geystaan dhaleecaynta Joe Biden oo u taagan xilka doorashada soo socota ee dalka Mareykanka.